Part 4 wuxuu kaga hadlayaa 7 arrimood oo qofku xasilooni iyo farxad oo warwarkan marka hore ka hadlana sida warwarka loo xaliyo laakiin iminka wuxuu ka hadlayaa sida farxadda lagu helo 7 qodob buu soo qaadanaya 7 qodob laftooda hadaad hesho sida xasilooni lagu helayo waxay ka mid tahay inaad warwarkii aad ka hortagayso waxa koobaad waa fikirka wuxuu ku leeyahay qaabkan aanu fikirno baa sababaya warwarkii dhibaatooyinkan haysta marraja abuur iyo wanaag iyo hididiila ilaahay wuxuu leeyahay adoonkayga wuxuu wana iga fashun biiga helaya mise waa shaki iyo xumaan iyo cabsi iyo negative sadu fikirsan weeyaan talabaadna waxa ku leeyahay cadawgaaga ha isku waqti hasiinin cadawgaaga iyo dadka nacabtay midna nin madaxweynaha Mareykanka soo qaadanay oo leeyahay never waste a time a minute thinking about people we don't like daqiiqad ha ogolaanad ku lumiso inaad ka fikirto dadka ayna jeclaan ma jeclid waa cadawgeeni maxaad uga fikiraysaa marka hadiyo jeer qodobkaas oo barataana waa arrin kala xasilooni aad ka heli karayso marba hadaanad jeclaan ama cadawida ka dhaxeeyo inaanad isku hawlan in badan dadka warwarkii culayska waxa ku keenay waxa weeyaanba dad aan jeclaan ka fikirkooda iyo ku mashquulsanaantooda qodobka saddexaad iyo afraad gratitude ku kaga hadlaya mahadnaqa oo midna ay tahay inaan filano in layno mahadnaqo layna amaano marka hore baa filan buu ku leeyahay wanaag inaad sameynayso ugu talagal hadii lagu mahadnaqana khayr hadii kalena meesha ku sii darsan marka hore xisaabta iyo midda adigu inaad nimcooyinkaaga tirasido oo mushkiladaadkaaga isku mashquulin count blessings tiri nimcooyinkaaga mushkilaadkaaga ha ku mashquulin ونقولنا وين تعد نعمة الله لا تحصوها حق دين تتنكاجنا مركب وقدم أنتي فاهم كلا الإسلام هان مهمة الله إذا قبكوا إنه نمعين كيسو وسكت ضيّا إنه جوا حوالك سنة وحيه أنت وقلب مشكلة ده كلية وكفكر لها قدم كلا عشان هذا حويان be who you are هيسكدك أنت تكلا imitation كعمد تكلا يسكدكستو والله بقى رمضان كأنت أنا قف حاسده وجاهلنمو يانا قف iska dhigto waa suicide waa still oo maxaa dishay qofkii aad xaqiiqada ahayd way xawiye jir waxaad rabtaa dad kale inaad isku eegayso iska dhigto farxad la'aantii warwarkii murugada waxa keenana waxa kamid ah inaad diidantay qofkii aad ahayd marka ahaw qofkaad adigu tahay is ahaw cid kale ha iska dhigin sirta lixaad ama qodobka lixaad waxa weeyaan marka mashaakilad iyo xaalad maadaan isku daysad fursad ugu abuur lahayd marka qiso soo qaadanaya midlan haddii nin beer lahaa oo liintiisii ka sumooday kadibna intuu suntii ka saaro xaliyay liin la cabi karayo u bedelay dabeetana ka faa'iideystay halka uu cali lahaa oo dhala mushkiladan ugu dhacday inuu ka fikiray inuu hal abuur keeno marka marar badan mashaakilada iyo caqabadaha inagu dhaca dad badan waxay uga faa'iideystaan qaab kale fursadaha ka dhaxarkaan marka hadii jeer marka qadartu ay gacanta ku gelisay buu leeyahay arrin qaraad oo dibsato bal horta ka fikir inay fursad kale ay ku jirto qodobka u dambeeya 7 arrimood waxa weeyaan in ay ku ilaabi karno marar badan warwarkeena iyo farxad la'aanteena inaan dadka kale ka farxino qof kale cid kale caawiso kaliya ayaa kugu filan karta farxad runtii waan ognahay xagga islaamka hadaan ka eegno xadiiskii ahaa qofka walaalkii wanaagiisa ku hawlan ilaahay baa isagana ku hawlan arrimihiisa waxaan ognahay sida la inagu sheegay qofku naftiisa wuxuu la jecel yahay walaalkii la jeclaado iyo jaarka wanaaga la isku kaashado arrimahaas oo dhan islaamku naga hadlayo qodobkana dhanka diinta iyo dhanka kaleba uu ka eegaya oo uu waliba leeyahay falaasifadu dhamaantood way isku raacsan yihiin in sirta ugu weyn farxad lagu helo ay tahay bal inaad qof kale aad ka farxiso marka wuxuu oranayaa soo qaadanaya when you are good for the others you are best to yourself bukulay marka dadka kale aad u wanaagsantahay waxaad best u tahay naftaada yani qofka kale oo ma wanaagsan good bad qofka kale oo tahay laakiin naftaada best u noqonaysa runtii 7 arrimood oo 7 arrimood oo farxad iyo xasilooni lagu helo buu leeyahay buugu dhamaantoodna logic iyo diiniyan dadka eegto runtii xaqiiqooyin badan ay ku jiraan isla markaana warwarkii lagu la dagaalami karayo